بسم الله الرحمن الرحيم عشر كل إنه وحيقة وحوي بدي كريدي بدي كريدي قف كسي immediately هو فهم كرا برتوا محاي تولي بدي كريدي debit وحوي an amount recorded on the left side is called debit. كنا وحوي an amount recorded right side is called credit. هل example أي شيء من كسمين دون إنه عشرة ضمن كسوة قاعدنا هنا محي هاي تولي حساب وسامين يدي بدي كريدت يصير وجود عيو سؤالنا تدي أنا جو أحمد أن سيجستو أو لبض إذا قعدنا نساو كلا بحيو قيبت هذا إنه حنقول سار رايت سايد وكريدت سايد بينقون إنسان مركز طبعا قيبت هذا إنه حنقول سار ليفت سايد أو حوي وديبت سايد أو حسوق لي أسد كي وحي أسد هو سمين يورد قيبت هذا إنه حوي وكريدت سايد marka oo waa right side waa qof sii jeeda baa la yiraahdaa marka sida uu sii jeedo tusaale ahaan waxa jirta wax T account la yiraahdo waxa jirta waxa la yiraahdo T account muxuu yahay T account wayna isweydiinaa sii jeedka xisaab kasta oo accountina ama calculation kasta oo accountina waxa lagu xisaabiyaa wax saas ah oo dhinacana debit baa ku dhaca dhinacana credit baa ku dhaca way bay saasu noqotay marka hore adduunku wax kasta meel bay ka yimaadaani marka sida uu sii jeedo maxay ahayd toolay xaggana waa right side kaygi xaggana maxay ahayd toolay waa left side kaygi so at that case waxa weeye halkaas pointigaas haddii wax kasta oo credit ah ay u soo dhaqaaqaan xagga debitka way decrease garoobayaan haddii wax kasta oo credit oo maxay ahayd debit wax kasta oo debit haddii uu dhaqaaqo xagga credit side-ka wuu decrease garoobaya isaguna midba opposite uu ku yahay xagga kale jihada kale kani wuxuu u kordhiyaa wax kasta oo credit liabilities-ka oo security-ga xisaabaadkooda waxay u kordhiyaan inagoo xisaabku muujin doona waxay u kordhiyaan xaggaas balance u noqonayaan xaggana minus bay ku noqonayaan haddii xisaab liabilities-ka dhinacan ku soo dhacdo mid kasta minus baa gelaya waa wax minus ah then assets-ku waxyaabaha hantida ah oo hoos imanaya oo iyaguna xaggana balance u noqonayaan this side dhinacanay u noqonayaan wax balance oo ay u kordhiyaan at that case T account waa waxaas la yiraahdo xisaabta lagu xisaabiyo mar kasta inagoo hal yar oo maxay ahayd toolay wax yar kaga sheekeynay T account wax sida xisaabtan wax sida u sii weyn maaha qofku uu fahmi karaa maxay ahayd toolay inta ka bacd waxaan waxa weeye waa T account-ki waxaan ku muujin doonaa xisaabaad tusaale ahaan oo kale marka lagu yiraahdo waxa la iibsaday guri intaas purchase ama received adigu marka ay soo korodho wax asadi xaguu asad ku kordhi jiray tusaale ahaan hal example oo fudud dhinacan oo asad ku kordhaa waa debit side-ki didi la hadda waan qarinay debit side-ki then $7,000 ayaan tusaale ahaan oo kale asadaba inoo kordhay waxa bay naga baxay cash ah $7,000 bay naga baxay cashku markuu inaga baxo xaguu minus noqon jiray dhinacan minus noqon jiray way uu inaga baxay debit iyo credit marka waa wax saa kala shaqeeya aad bayna u fududahay inuu ardaygu fahmo debit iyo credit waxay kala yihiin inkastoo ay ku takhasaan aad ugu khasaan wayna ku khalkhalan sometimes mararka maxay ahayd toole ay xisaabinayaan waxyaabaha kan account-ka la xiriira marka tusaalayaal noocaas ayaan soo qaadanaa hal example haddaan soo qaadano
haddaan hal example soo qaadanoo kale haddeeroo kale waxayba nidhi October 1 started business bayna start garaynay with capital iyadoo capital ah with capital equity of sideetan kun oo cash ah ayadoo ganacsigu start garayna ku bilownay waayo waa October 1 baan bilownay haddaba inagoo doonayna inaan debit iyo credit ka fahanno waayo hadda hal tii account yar baan ku muujinaynaa hal mid oo tii account ah waayo sideetan kun baa cash soo ma oo maxay ahayd hore ganacsi oo cash marka waxaan xagee u kordhi jireen marka ay cash tahay oo aan ganacsi bilownay waa inaan garanno inay u kordhi jireen dhinaca wax kasta oo asadi ay u kordhaan dhinaca debit side-ka ayna u decrease garoobaan dhinaca credit side-ka so 80,000 halkan aan dhigaynaa marka intii account xisaaban casharkan cashar ku xiga xisaab journal weyn baan ku muujinaynaa oo debit iyo credit shay ugu kala dhacaan sida ay u saameeyaan transactionska sida u saameeyaan way capitalku wuxuu xigay maxaa journal entry-ga ama journal oo kale capitalku halkan oo kale yahay capitalku waayo xigay dhinacii credit side ku xigay marka halkan maxaa la socota qoraalka mostly waxa ugu muhiimsan qofku markuu account ka shaqeynayo inuu fahmo English meesha ku taala ama se dhinaca u socota annagu markaan aan bilaabanay account-ka markis hoosaan sometimes keeni jirnay marka waxa dhici jirtay inaan badii fahansanay waxaan concept baan ka haysan adaadkiis with capital marka ay tahay inagoon casharkii ka bixin capitalku dhinacan waxa credit side ku ah capital statement kuna kala dhigana maxay ahayd toolay inagoo tan laftirkeeda ama intan kala qaadno aan oran karnaa halkan tan waxa noqonaysaa asset bay noqonaysaa mid kale tii account kana ku muujinayna oo waa capital stock waxa weeye dhinacan u leeyahay markasta 80,000 marka halkaas ku muujinayna marka tii account-ku iyo debit iyo credit side-ku waa waxyaabo markasta sida u shaqeeya xisaabaad waaweyn baan ku muujin doonaa in badan baa la faguri doonaa hase yeeshee maxay ahayd tooley assetku dhammaan wax kastoo asset ah wax kastoo asset account-isa weliba normally caadi ahaan half waxay leeyihiin debit balance يعني قيمتني ليه wax kasto maxay ahayd toolay asset all liabilities and owner security guna normally caadi ahaan waxay leeyihiin credit side marka tii account-ku marka lagu sheegay tii account-kuna wuxuu ka yimi marka ugu horeysa halkaas uu ka yimi maxay ahayd toolay kuwan liabilities iyo security dhinacan ay dhacaan marka waxa jira xisaabaadka marka balance sheet ka kale la diyaarinayo inay ardayga ku adkaato sidii kuwan maxay ahayd toolay uu kala saari lahaa ama se uu maxay ahayd toolay kuwan uu soo kala xiri lahaa adaadkiis xaaladda intan ku jirno maxay ahayd toolay account-ku wuxuu leeyahay faham guud marka qofku akhriyo meel yar baa lagu oranayaa salahaan oo kale halkaas oo kale with capital oo kale ka maqan tahay markaana with capital ku shirin waa inaad destatekii kuna asad uu noqonayaa wixii capital stock gelmaayo marka xisaabaad fara badan baan ku muujin doonaa oo aad iyo aad u waaweyn haddayn hal maro mid kale tusaale kale soo qaadano
حبات قلنا إنوكن حمود قلنا إنوكن مالها نكسوقة جلسنا أنا معلم ويدي tusaalahaan oo kale haddayn tusaale soo qaadano aynu ku sheegayno tii accountku sida uu u saameeyo waxyaabaha kan transactionsku saameyn saddex su'aalood baad isweydiinaysaa markaad process diyaariso marka maanta waqtigoona ugu yar awgii maxay ahayd toolay ma aynaan kama geeyon karno tana waa process aada u dheer marka maalinta dambe iyo maalmaha ku xiga ayaan keeni doonaa kuwan oo raacsan tusaale ahaan markayn hal tusaale soo qaadano oo tusaale yaro fudud aynu soo qaadano waxaa lagu yidhi purchasing land dhul buu soo iibsaday for 250,000 isagoo bixiyey cash marka tusaalahaan oo kale 250,000 baad dhul ku iibsatay cash baad ku bixisay cash markaad ku bixisay waxaa lagu yidhi laba tii account baynu samaynanaa maxaa halkaa inaga baxay 250,000 maxay ku bixeen cash way haltii account ii samee cashku assetku wuxuu hoos iman jiray cashku assetku hoos tegi jiray soo ma ahayn cash baa markaa hadda naga baxay marka xaguu u yaraan jiray waxaan laguu sheegaya cashka ama assetka wuxuu yaraan jiray dhinacan credit side so 250,000 kun halkan ay geliyaan markasta xisaab weyn baan ku muujin doonaa mid kalaan tii account kalaan sameynaynaa waxa weeye waa laan bay noo soo kordhay laanku markastaba balaas buu noqonayaa maadaama aynu dhul helay 250,000 marka haddee maadaama aynu dhul helay wuxuu noqonayaa 250,000 oo balaasa oo dhinaca debit side ku dhacayo inagoo balaastana qarinayna markastaba marka xaalado noocaas ayuu ku shaqeeyaa markaad tusaale ahaan transaction markaad diyaariso accountnada uu saameeyey baad eegaysaa account-kii inuu increase garoobay iyo inuu decrease garoobay baad account-kii eegaysaa transaction-kii dhacay inuu account-kii decrease gareeyey increase gareeyey ama decrease gareeyey aad eegaysaa sidee baan markaa tii account ugu muujinaynaa waa su-aasha saddexaad inuu decrease-kii uu sameeyey kanaa markaa tii account-kii lagu muujinayaa tusaale ahaan xisaab weyn baan soo qornay inagoo tusaale kan ka fiican oo weyn maalmaha dambe soo qaadanayna maadaama maanta waqtigu noo saamaxayn marka insha allah casharku maanta intaas wuu inoogu ekaanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh